Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa taariikhda mid ka mid ah culimadii waaweyneed ee soo martay Islaamka qarnigii 19aad. Waa Sheekh Cabdilcasiis bin Cabdillaahi ibnu Baas. Marka hore waxaan ku bilaabaynaa magaca Alle ina baray qalinka iyo qoraalka, sidoo kale ina baray waxaynan aqoon ina siiyay diin aynu raacno, inoogu deeqay dad diintaasi uu ku ilaaliyay. Allahaas ayaa mahad leh, ammaan dhammaanteedna u sugnaatay. Intaa ka bacdi waxaan jeclaystay inaan idila socotiyo qayb ka mid ah waayihii iyo waqtigii noloshiisa sheekh ka mid ah culimadii casrigan aan joogno gacan weyn ka geystay u gargaaridda diinta suuban. Waa haldoorkii, waa caalimkii, waa muxadiskii ku xil dheeraa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam, waa fiqiyahankii qarnigiisa, waa muftigii islaamka, waa geesigii aan la gaban jirin xaqa, waa halgamaagii diinta inaan bidac lagu soo kordhin. waa Cabdilcasiis ibnu Cabdillaahi ibnu Baas. waxa uu dhashay sheekhu Dulxija hilaadii tirsiga islaamka 1330 hijriga magaalada Riyaad. waxa uu Ilaahay u dhammaystiray dadka kalena kala sinaa oo uu qabay indhihiisa noloshiisa intii dhalinyaronimada, balse waqtiyada ka mid ah baa waxaa soo food saaray xanuun dhinaca indhaha ah, muddana uu la ildaraa. sanadkii 1346 hijriga marba marka kasii dambaysa waxa soo yaraanayay heerka aragga indhihiisa, balse waxa uu si toos ah indhihiisa u waayay 1350 hijriga. sheekhu waxa uu quraanka xifdiyay isagoo aan qan gaadhin, taasina waxa ay ku tusinaysaa heerka iyo marxaladiisa cilmigu inay ka soo bilaabantay waqtigii barbaarintiisa. sidoo kale waxa uu markiiba bilaabay in uu dalbo aqoonta diiniga ah noocyadeeda kala duwan, siiba gudaha magaaladiisii Riyaad culimadii joogtay. intaa kadib waxaa loo magacaabay garsoorka waqtigu markii uu ahaa 1357 taariikhda hijriga. xilka oo uu sheekhu ummadda u hayayna wax mashquul ah ama caqabad uu taab la rogi waayo kumay noqonin, halkii baanu ka sii waday cilmi baadhistii, dhigistii iyo dhigashadiiba. waxa uu u guntaday barista iyo uga faa'iideynta ummadda cilmiga habeen iyo maalinba, khaasatan ahmiyaddii uu siiyey cilmiga xadiiska iyo qaybihiisa kala duwan marka laga eego dhinaca saxiixinta iyo daciifinta, waana heer iyo darajo ay yar tahay cidda gaadhay waqtigan xaadirka ah. cilmi barashadiisa maadaama uu sheekhu u helanaa geed dheer iyo mid gaabanbana u koray. culimadiisii haddii aynu ka soo qaadanno qayb ka mid ah, waxaa ka mid ahaa Sheekh Sacad bin Waqaas al-Bukhaari oo ka mid ahaa culimadii magaalada Maka, Sheekh Maxamed bin Ibraahim bin Cabdiladiif oo uu sheekhu muddo 10 sano ah cilmiga ka qaadanayay, Sheekh Sacad bin Xamdi bin Catiiq ahaana garsoorihii markaasi ee Riyaad, Maxamed ibnu Faris. Ilaahay dhammaantood ha ka abaaliyo, hana u naxariisto iyaga iyo sheekhaba. haddaynu eegno dhinaca shaqooyinkii iyo xilalkii uu qabtay, aad bay u kala duwanaayeen. waxaana ka mid ahaa waxa uu wadaadku madax ka noqday hay-atu kibaarul culamaa ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. waxa uu xubin ka noqday madaxna ka noqday golaha raabidada islaamka. u naxariista waxa uu sheekhu madax ka noqday golaha joogtada ah ee cilmi baadhista iyo fatwada ee loo yaqaano lajnatu daa'ima. waxa uu xubin ka noqday sidoo kale golaha sare ee jaamacadda Madiina. uu madax ka noqday majmaca fiqiga islaamiga ah ee Makka al-Mukarrama. intaa kumay eekayn shaqooyinkii uu ummadda u hayay. waxa uu jeedin jiray khudbado iyo nadwooyin cilmi, wanaag farista iyo xumaan reebista, iyo barista iyo dhigidda cilmiga. haddaynu eegno dhinaca kutubtii sheekhu uu alifay, ka mid ahaa kutubta loo yaqaan majmuucu fataawa, alfawaa'id aljaliya fi lmabaaxis alfaradiya, tawxiidu masaanik. sidoo kale waxaa ka mid ah kitaabka loo yaqaano at-taxdiiru min albidaci oo ka kooban 4 maqaalo, kana mid tahay arrinta uu aadka gaashaanka ugu daruuri jiray ee qisada Axmed Daad ee qabriga nabiga sallallahu calayhi wasallam. sidoo kale waxaa ka mid ah 2 risaaladood oo ka kooban kana hadlaya soomka iyo sekada, kitaabka caqiidada saxiixa ah iyo waxyaalaha lidiga ku ah. daawadayaal, intaa iyo in lamida toona laguma soo koobi karo haddii loo qalin qaato mahadhooyinkii iyo taariikhdii suubanayd ee maalmihii uu noolaa Sheekh Cabdilcasiis ibnu Baas. haddaynu ka hadalno geeridii sheekha, Sheekh Cabdilcasiis ibnu Baas waxa uu adduunka ka tegay maalin khamiisa 27 Muxarram sanad tirsiga islaamka 1420 ee hijriga, oo waafaqsan tirada miilaadiga 1999 13 bisha May.
iyadoo maalintii Jimcaha ay khalqi fara badani ku tukadeen janaasadiisii. Daawadayaal intaas ayaan kusoo koobi doonaa taariikh nololeedkii iyo mahadhooyinkii Sheekh Cabdilcasiis Ibnu Baas. Wassalaamu calaykum